السلام عليكم أصحابي سيدا واركتان بأوفن كيك أما فورنة وثق إيغان نقط برياني تود ما نظيفية واسك استعمالها وبس واسك حرابة واسك استعمالها مركز ثاني نقطي هذا وحان روا إنا نظيفية إذن لقيب سيدا إذن كان وحان أنا استعمالها أيوه سنت انت هذا استعمالي وحاو باهنتا قلافية دير oo ilaa suxulka gadaal u moodaa yaryariiskan lama rabo waxaan yaryar lama rabo suntaan halis waay marka galaafiyadan dheer aa gashanaysaa marka hore sunti waa taasaa hadda meesha kulli waa ku tirtiraa ku dhooba meel waa kan sunti waa wada mariyay sidaa u aragtaanba kan albaabka hore waaye ama meesha hore kan kalena waaba kan hadda intay ka dhalaalayso wasaqda ay ka dhalaalaysan sugayna sidaa u aragtaan waaba dhalaalaysaa ciyooba maasha allah marka sun oo qatar ah waay laakiin waa inaa galaafiya gashatiin hadhow markaan idin soo tuso insha allah marka waxaan sugayaa hal saac oo kale inta wasaqdan saan waxaan meeshaan ku gubtay oo ka dhalaalayo sidaa u aragtaan hadda waatan meesha way dhalaalaysaa marka ani waxaan qaatay brush laakiin muhiim waxa ah inaad galaafiya ay kuugu jiraan mar walbaba markay meeshii oo waxa ku dhageen way dhalaalaysaa maasha allah laakiin aniga brushaan haystaa gacantayda ma taabanayso saan galaafiya iigu jira ilaa suxulka kor u dhaafay marka waa muhiim inaad galaafiya gashatid mar walbaba oo aysan ku taabanin sunta weli waa kan muxuu ahaayay ovenkii sidii waay ma dhalaalin aad uma dhalaalin marka aniga muxuu ahaay sugila wixii saafoornadan rabaa inaan isticmaalo laakiin meelaha qaar aad ay u qurxaatay maasha allah ilbaabka oo kale sidaa u aragtaan quruxoo noqday maasha allah marka iska ilaaliya suntaanaytod aniga hadda galaaf ma gashanin si aan idiin tuso keliya waa kan anaa degdegsan oo muxuu ahaa ma sugi kari ilaa iyo hal saaco buuxa laakiin muxuu ahaa sidii hore aad ay aga roon tahay maasha allah weliba ilbaabka ma aragtay ilbaabka muxuu ahaa dhalada ah madow aad iiga noqday marka ilbaabka waaba kana waaba aragtaanba maasha allah tabaaraka allah marka waxaan inaan ka tirtiro waa si degdega maxaa waa u baahanahay foornada marka la si fiican u nadiifin doonaa aan idin tusi doonaan insha allah ilaahay idinka waa kan hadda waa tirtiraya diyaaray ii noqotay sidaan hore idinkugu sheegay waa kana hadda wixii waa ka dhaqay wax badan ma soo waxa ii heray meeshaas oo hoos ilbaabka iyo foornada inta u dhaxayso kaasaan hadda nadiif maasha allah waa kana ovenki nadiifaan ka dhigay hadeertanaytood maasha allah sidii hore aad iyo aad ay u dhaantaa muxuu ahaay mar walba saan isku lahaa berri nadiifi berri dambe nadiifi waaba waqtigaaba iska ordaayo marka alxamdulillah hadda xoogoo sidii hore way iiga fiican tahay markaa soo dhawaada asxaabey waxaan idin tusi doonaa waxyaabaha aan ku nadiifiyay haddaa u baahan tihiin waxaad kusoo qortaan meesha commentiga ama luuqa iigu soo qora daawada aan isticmaalay maxaa jira dheh ma ogolo asxaabtanaytood insaan aan tuso dadka